kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale iyo barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda horfadhi media gaanka gaandida oo dhan daawadayaasha qiimaha leh qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay ee dhibaatooyinka culus ee dadka Soomaaliyeed haysta gaar ahaan xaaladda adag ee ka taagan magaalada Muqdisho iyadoo markaas ilaa hadda xal loo leeyahay in amniga magaalada Muqdisho la xasiliyo dalka Kenya oo iyaguna sheegay inay ka dhidhisan yihiin dhibaatada Soomaalida gaadhay war qoraal ah oo ay soo saareen ay ku tafaasiil kaga bixiyaan arrintaas Mareykanka Gooroweyto waxa uu sugan ku dhawaaqay in gobolka Hiiraan duqeyn ka dhacday uu ku dilay tobanaan ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab oo sheegay inay bartilmaameed ay leeyihiin burburiyeen wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka Pakistan iyo Hindiya iyadoo ay u muuqato xiisadu inay cirka isku sii shareerayso walaal Pakistan ay sii deysay ninkii askariga ahaa ee ku qabatay dagaalka dhanka kalena dalka Pakistan oo isaguna Gooroweyto sheegay inuu ka qayb galaynin shirweynaha dalalka Islaamka ee ka dhacaya magaalada Abu Dhabi kadib markii dawladda isku tagay Imaaraadka Carabta ee Hindiya aan xubin ka ahayn ururka Islaamka ay ku casuuntay shirkaas qodobadaas iyo kuwa kale daawadayaasha qiimaha leh ku maqli doontaan wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan iyo qodobo kale waliba xiiso leh ayaad ku maqli doontaan daawadayaasha qiimaha leh waa 2 bishii Maarso 2019 waa maalinimo sabti ah oo mar kale barnaamijkeeni falanqaynta dunida warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh dad badan oo runtii aad ula yaaban waxyaalaha ku dhacay codadkii dadka ee ahayd in ay shalay raacaan falanqayntii aynu sameynay ee ku saabsaneed dalalka Hindiya iyo Pakistan waxa ay runtii aad noo weydiinayaan aad ula yaaban halka wararkii ay ka dhaceen daawasha qiimaha leh taas waxay ku timid kadib markii xaruntii horfadhi media ay ku leedahay magaalada Xamar ay burbur xoogan u soo gaaray qaraxii iyo weeraradiisa xigay inta ka badan 12 saacadood qaatay ee magaalada Muqdisho inkastoo ay shaqaalaha xaruntu ay nabad qabaan haddana inta badan burbur xoogan oo xaruntii gaaray iyo qalabkii ayaa keenay in dabadhacaas uu yimaado isla markaana aysan ahayn wax la sheegto marka la eego masiibada meesha ka dhacday iyo markaas dhibaatada weyn ee dadkeena Soomaaliyeed gaadhay kolkaas daawadayaal waxaan rajaynaynaa inaan bari aynu codadkaas in soo deeyno hadii ay baydno marka ama maanta hadii alla idmo labadaas ay mid noqon doontaa inay mid ahaan soo tabino wararkaas ku saabsan dadka iyo afkaartooda runtiina qadiyado kale oo arinta ku saabsan waan ka hadli doonaa ee qodobada ugu horeeya wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda aan ku horeeya qaybtani dadka reer Yaman ee ka soo qaxay dalkooda Yaman ee ku sugan Jamhuuriyadda Djibouti ayaa kolkii ugu horeeyay waxa ay ka hadleen dhibaatooyin waaweyn oo halkaas ka haysta dadkan oo sheegay in ay ka soo carareen dalkoodii hooyo kadib markii dagaal culus oo muddo 3 sanadood iyo jarjara oo u dhaxeeya huwan dawladda Sacuudi Carabiya hogaaminayso iyo kooxda Xuutiyiinta Yaman ka dagaalama ee Iiraaniyiintu ay bartaaraan ayaa haatan waxa laga soo diyaariyay barnaamij aad iyo aad u tafkiran oo ay soo diyaarisay TV-ga Al Jazeera mid kamid ah dadka lagu wareystay barnaamijka ayaa tafaasiil dheeraad ka bixiyay xarun qaxoonti oo Sacuudi Carabiya ay ka hirgelisay duleedka magaalada Djibouti Ahmed Mohamed Ali oo ah nin dhalinyaro ah ayaa sheegay inuu uga soo cararay dalkiisii hooyo in uu ku badbaado dalka Djibouti isla markaana uu ka helo nolol wanaagsan wuxuu sheegay in dalka Djibouti iyo dadka reer Djibouti ay si weyn u soo dhaweeyeen dadka reer Yaman ee soo barakacay walaalahooda wuxuuna sheegay in xaaladoodu ay muuqatay mid isbedelaysa kolkii dawladaha Djibouti iyo Sacuudi Carabiya ay kala saxeexdeen heshiis ah in Sacuudiga uu maalgeliyo koob qaxoonti oo bar ah oo leedahay markaasi oo halkaasi laga dhiso oo dadka lagu hoy iyo looga dhigo meel waxbarasho waxa uu sheegay in la dhisay guryo container ah oo u muuqda ayuu yiri ko markaasi laga dhisay goob saxara oo haba yaraatay aan lahayn dhir dabiici ah waxa uu sheegay in dawladda Sacuudiga halkaas ay dejisay iyo dawladda Djibouti iskaashanaya 1200 qoys oo Yamaniyiin laba cusbitaal iyo hal iskuul ayaa laga dhisay yiri goobta sidoo kalena waxa ay goobtu tahay yiri goob aad iyo aad hadirta u korol wuxuu ku tilmaamay in ay ku yartahay meesha korontada isla markaana aysan jirin geed la harsado qorraxduna aad u kulushahay inta badan heerkulku gaaro ama uu dhaafo 35 digrii oo kor ah wuxuuna sheegay in ay u muuqato in xaaladdu ay ka daran tahay ayuu yiri waxa loogu yeero uumiyaha ama office-ka meesha la yiraahdo cuntada lagu uumiyo ayuu ku tilmaamay wuxuuna sheegay in ay u muuqato in dadka qaarkood ay ku dhiman karaan arinta aniga aabahay waa dhintay ayuu marka aabahay dhintay 4 ciyaal oo iga yaryar iyo hooyaday ayaa la soo firxada dawladda Sacuudiga ayaana sheegtay inay dawladda Yaman dawladda Djibouti isku afkarteen inay markaasi ay maalgeliyaan isla markaana dawladdu u sameeyaan guryo container ayaa laga dhisay qoraxda ayaa si aad u kulul cimiladu aad bay u kulushaa ma helo ayuu yiri koronto ugu filan 4 saacadood ayaanu helaa ayuu yiri korontada waxaana subaxa hore ayaa la soo daayaa kadib iyadoo aan kowda la gaarin xilliga qadada ayaa la gooyaa ayuu yiri korontada ama 7 saac hada saad u taqaan ama kowda duhurnimo kadibna waxa ay noqotaa ayuu yiri inaan sugno 4 saac oo kale xilliga fiidnimada ah marka la isku daro waxaanu helaa ayuu yiri 8 saacadood 24 saac koronto laakiin 24 saac oo kuleen marmarka qaarkood waxaanu ka soo cararnaa ayuu yiri guryaha waayo wuxuu yiri waa sidii adoor lagu cadaabayo waxay ka daran yihiin ayuu yiri meesha wax lagu uumiyo
ama mashiinka wax lagu uumiyo cuntada lagu uunsado ayuu sheegay wuxuuna yidhi waa arrin aad iyo aad u daran haddeer waxaan doonaynaa inaan halkan ka cararno dowladda Sacuudi Carabiya ayaa la sheegay inay ku maalgelisay xeradaasi lacag gaadhaysa 6 milyan iyo 500 kun oo dollar taasoo ka yar markaasi 5 jeer lacagta ay goyso gantaalaha ay u isticmaasho dadka reer Yemen ee loo yaqaano Raytheon Tomahawk cruise missiles oo ay dowladda Mareykanka ka gadato waxaana la sheegay in toddobaadkiiba ay dowladdu halkaasi ku tuurto 10 gantaalaha la yiraahdo Raytheon Tomahawk ay ku gento waxaana la sheegay in lacagtaasi aad uga yartahay halkaasi hadeerto waxa uu sheegay ninka dhalinyarada Masar in uu doonayo in uu dalka leeyahay Mexico ama Brazil mid ahaan dibadajin loogu sameeyo asagoo markaas sheegay in noloshiisu halkan isku bedelayso hooyaday wuxuu yiri wax walba way sameysay dahabkeedii ayay gaday waxay halkan ka furtay ayuu yiri meel ay markaasi ku iibiso nacnaca sigaarka iyo waliba barafka oo ay dadka ka iibiso si ay nolosheeda u kaabto hooyaday wax kasta way noo sameysay laakiin aniga ayay tahay inaan wax sameeyo halkan waxba kama sameey karo ayuu yiri waxa uu sheegay inay ka soo gudbeen halka loo yaqaan Bab al-Mandab ama marinka Bab al-Mandab ee isku xidha badda Carbeed iyo tan ama tan cas waxaana markaasi dadka reer Yemen ay u bixiyeen surinkii ilmada oo ay ku tilmaameen dadka dhibaatada xooggan inay ka soo gaadho kolka ay yimaadaan Djibouti dalka Djibouti ayaa la sheegay in uu soo dhaweeyay dad gaaraya 37,248 kun oo ruux oo dad reer Yemen soo farxday dawladda Djibouti ayaa la sheegay inay wixii karaankeeda ah ay dadkaasi u sameysay xataa waxa ay siisay Djibouti waraaqo ay dadku shaqo ku raadsadaan laakiin inta badan Djibouti marka shaqo ka raadsanayso waa inaad taqaanaa luqadda Faransiiska sida daraadeed dadkaasi luqadda ma yaqaanaan wayna ku adkaatay inay shaqooyin helaan ayaa lagu sheegay warbixinta ay diyaarisay barnaamijka Al Jazeera lagu soo diyaariyay wuxuu sheegay haddii xilliga Ramadaanka la gaaro inay xaaladdu ka sii dari doonto isla markaana ay dadka qaarkood u dhima karaan kuleylka halkaasi ka jira oo sheegay inaysan jirin qaboojiyaal ama aysan jirin koronto halka nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay warbixinii dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan gaanka gaadurida oo dhan daawadayaasha qiimaha haatana xamar ayadoo ay u muuqato in la soo afjaray howlgalkii ciidamada ammaanka ee dalka Soomaaliya ay kaga howlgalayeen dhulkii ay isku gadaameen kooxda markaasi dadka ku leeyahay gudaha hoteeladaasi 18 saacadood ayay ku qaadatay in weerarka la soo afmeero oo kuwaas oo ay dhismayaal dhowr ay ku galeen oo ku yaala wadada Maka al-Mukarrama hoteelo iyo goobo ganacsi iyo kuwa rayidba weeraryahanno sheegay in ay ka tirsan yihiin kooxda al-Shabaab weerarkan oo ahaa kii ugu saacadaha dheeraa marka loo eego xilliga ay kaga taqalusi jireen ciidamada Soomaaliya ayaa haatan waxa la sheegaya in arintaasi ay ka dambeysay kadib markii ciidankii gaashaan la sheegay in dhawaanahan oo dhan howlgab ay ahaayeen ama shaqooyinkoodii la bedelay ama lagu dhex daray ciidanka booliska ayadoo ahaa ciidankii marka uu horeeyay uu carbisnaa in ay ka hortagaan weerarada noocan oo kala si kastaba ha noqotee wararka waxa ay sheegayaan ugu dambeeyay haatan in khasaaraha halkaas uu ka dhashay markaas dambeeyay uu sii badanay dadkii uu dhaawac ahaa ayaa badankoodii leenaya isla markaana dadka ayaa u eg qaar gubtay qaarna marra xun qaba iyo qaar gubashadoodu ay tahay mid xadaaf dadka qaarkood ayaa la sheegay in aan xaaladooda waxba dalka gudihiisa laga qabi karin maadaama gubniin xoogan uu gaaray sidoo kale waxa jira isbayaal aad u burburay oo dadka qaarkood ku soo dumay dadka qaarkood ayaa waxa la sheegay in ay dhaawacyo kale oo lixaad leh ay qabaan dhimashada ayaa haatan waxa ay cagacageenaysaa baa leeyahay in ka badan 20 ruux waxaana ay sidoo kale sheegayaan wararkii ugu dambeeyay halkaasi in ay jiraan ayaa la yiri dad kale oo aan la garanaynin meel ay raqiyo ruux ku dambeeyay dad badan ayaa ehelkoodii kula ayaa la dhismayaasha dhibaatadu gaadhay dhamaantood waxay u badan yihiin kuwa rayid isla markaana dadka dhintay waxay u badan yihiin rayid waxayna ahaayeen dad dhalinyaro ah qaarkood arday qaarkood dad iska ganacsata kuwa nolol maalmeedkooda jirsanaya iyo kuwa markaasi ka soo rawaxay shaqooyinkooda si kastaba ha noqotee arintan ayaa waxay markale ka maqraati kacaysaa in dhibaatada Soomaalida aysan faray ka qodnayn gaar ahaan magaalada Muqdisho ugu sii xumaato ama ugu sii daraato arinta ayaa waxa kale oo ay ka sii dartay kadib markii dawladda Soomaaliya saacado badan kadib ay ka hadashay mas'uulka labaad ee ugu sareeya laanta fulinta dalka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka hadlay markaasi arinta muddo 20 saacadood kadib kolkii ay dhacdo wuxuuna sheegay inuu ka tacsiyanayo dhibaatada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ilaahay hadeerta aan arinta ka hadal ilaa hadeerto waxa jira in dadka dhintay tiradu ay sii kordhayso ra'iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay 35 ruux dad ka badan ayaa dhintay ama ay dhimashadu ay marasa dad ka badan ayaa siyaalo kala duwan uga hadlaya amaanka iyo sida ay xaaladdan ay uga sii darsanayso kala walba intaynaan horta gelin arinta ku saabsan aaraarta arintaas iyo falanqaynta xoogan ay ku sameey karayno sidoo kale waxa arinta ka hadlay dawladda dalkaasi Kenya dalka Kenya ayaa war qoraal ah oo ay ka soo saareen arintaasi waxa uu ekaa mid erebixinta lagu qoray markan la xushay isla markaana muujinaysa cilaaqaadka labada dad ka dhaxeeya
in ay Kenya doonayso inay hoosta ka xariiqdo isla markaana xilligan adag ee dadka Soomaalida u muujiso wax ay u isticmaashay dhimrin wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya barteeda Twitter-ka ayay soo gelisay war ay qoraal ah isla markaana waxay ku lifaaqday warqadii ay u dirtay dawladda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay sheegtay waxay qodobaysay sida ay dhibka u aragto wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay iyada oo xanuun qalbiga guntiisa hoose ah oo ka dareemaysa qalbiga gudihiisa ayaa lagu yiri tacsi tiiraanya leh u diraysa xukuumadda iyo shacabka dawladda federaalka Soomaaliya kadib weerarkii argagixiso ee raxandaro ee musiibada ahaa ee lagu fuliyay magaalada Muqdisho kaasoo dhaliyay dhibaato xooggan oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac wuxuu ahaa weerar bahalnimo oo xun ayaa leeyahay laba falalka argagixiso waxay khatar isku mid ah ku yihiin baa leeyahay labada dad labadeena wadan waxayna hoosta ka xariiqayaan sidoo kale baahiyaha inaan si dhow oo wada jir ah uga wada shaqeyno ama uga hortagno inagoo kaashanayna istiraatiijiyad xulufadeena ah iyo sidii loo wajihi lahaa dagaalka caalamiga ee argixisada iyo xagjirnimada qalalaasaha iyo dhibaatada xooggan wata si aan ula tacaalo baa leeyahay ogana bursanno kooxaha halista badan isla markaana ugu bedelno baa leeyahay nabad iyo ammaan waara oo joogto ah saddex baa leeyahay maadaama uu yahay baa leeyahay dal aan walaalanahay waxaanu si karkacal leh iyo markaasi dhimrin muujinayna isla markaana aynu wax walba oo la garab taaganahay baa leeyahay dadkii Soomaaliyeed iyo qoysaskoodii ay ku jiraan kuweena baa leeyahay waxaan uga tacsiyanaynaa geerida dadkii ay jeclaayeen ee ay dhumiyeen oo aan waxba galabsan noloshoodana ku waayay baa leeyahay geeridaasi la yaabka iyo fajac leh ayaa leeyahay xukuumadda Jamhuuriyadda Kenya waxay tacsi u gudbisay baa leeyahay xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare mudane Xasan Cali Khayre waxayna u xaqiijisay sida ay Kenya diyaarka ugu tahay inay xoojiso wada shaqeyn buuxda dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya haweeneyda la yiraahdo Monica Choma ayaa sheegtay iyaduna inay si shakhsiyan ama qofiyana ay uga tacsiyanayso dhibaatada dadka Soomaalida gaadhay Miss Choma waxay sheegtay in Kenya ay sii wadi doonto caawinta ay dadka Soomaaliyeed la garab taagan yihiin kolka xaaladdu ay sidoo kale ay tahay dawladda qiimaha leh ee Soomaalida ee daawanaya runtii taasi cambaarayn joogto ah ayaa naga soo hadhay waxa naga soo hadhay baroor waxa naga soo hadhay booyis sayaash waxa muuqata inay leedahay deerto ayna talaabo fiican ayna qaadin runtiina talaabada fiican ee u baahan in ay noqoto talaabo fiican waxa ay noqon kartaa ficilkuna wuxuusan ka maarmin laba arrimood ayuusan ka maarmin wuxuusan ka maarmin hoggaan wuxuusan sidoo kale ka maarmin shacab labadaba midna kama maarmo sida muuqatana waxa labadaasba fashil weyn ayay Soomaalidu ka taagantay runtiina waxa aad inoo dhibas in dadka qaarkood ay difaacaan marka aan doonayno inay wax saxno oo yaani sida wax lagu saxi lahaa saxitaanka lagu gaar lahaa ay runtii ay difaacaan isla markaana dadka ay kooxays iyo qabiilays ay ku difaacayaan shakhsi jeclaysi kala weynaato dhiigga Soomaalida daadanay ummadda Soomaaliyeed waxaad moodaa inuu ku dhacay fatuur in ay la yaraatay ama la fududaatay dhiigga dadka muslimiinta dhiigga dadka walaalaha dhiigga dadka dhibaatada iyo cuqubooyinka weyn la galay ma aha kaliya qaraxyada cuqubooyinka way badan yihiin tiigalka ayaa ka dhacday ayaan arkin gabadh yareed dad badan inkastoo ka hadleen oo Soomaaliyeed oo runtii aynu eegnay dadka reaction-koodii sida uga ficilradiga uga sameeyeen haddana waa waxyaalaha yaani ina tusinaya in masiibooyin waaweyn waddankeena ka jiraan in dhibaatooyin waaweyn iyo cuqubaad waaweyn waddankeena ka jiraan in ay la mid noqonayso dadka ku faraxsan arintaas ama dadka ayagoo wax ka qaban karaan waxba ka qabanayn ama qofka asagoo niyada ka diidi kara aan ka diideyn ama ka asagoo ducee kara aan duceenayn ama ka asagoo dhiiri gali kara aan dhiiri galinayn ama ka asagoo ka hortagi kara aan ka hortagi dhamaanteed isku dambi bay noqonana waxaa ii muuqata in dadka Soomaaliyeed markan ay u baahan yihiin in ay helaan qacdoon shacab cid u hogaamisa dadka Soomaaliyeed kuma waxaan arkaa madaxdu inta badan waraaqaha soo saaraan waxay shacabka ugu baaqaan waraaq bay soo saaraan waxayna shacabka ugu baaqaan inay ciidamada la shaqeeyaan ciidamadu halkay joogaan ciidamadu halkee ayay ka howlgalayaan ciidamadu ma waxay kaliya oo soo gurayaan dhaawaca iyo dhimashada ciidamadu miyaysan ahayn kuwii loogu talagalay inay wardoon warawarayn iyo wardoon xeelad dheer sameeyaan shacabka inay kalsooni ka sameystaan hogaanku inuu la yimaado istiraatiijiyad shacabka lagu howlgelinayo isla markaana guri loogu sugayo amaanka miyaysan ahayn in lagu daadiyo wadooyinka qalab iyo quxuun in la bedelo ma jugsug meeshaadi joog ayaynu ku jiri karnaa mar walba halkaas ma taagnaa karno waxaanu u baahanahay inaynu fikirno oo runtii la isku yimaado madax iyo shacabkuna ay la yimaadaan wada shaqayn dhaba laakiin wali aniga waxa ay muuqata
in xagga hogaanka ay wax badan ka khaldan yihiin xagga laamaha amniga aysan ilaa hadeerto aysan jirin wax tangible oo la taaban karo yacni wax cuntamaya oo dadkan ay tahay in ay ku hawlgeliyaan dadkuna ay jiitamaan tusaale xilligii dhacdooyinka waaweyn oo Soomaalidu kacdoonka dadyooga ugu fiican waay aad bay ugu fiican xilligii dabayshii xornimada Soomaalidu kacdoon ayaa yimid xilligii midowga kacdoon ayaa jiray xilligii doorashooyinkii ugu horeeyay dalka kacdoon baa jiray xilligii dagaalkii ugu horeeyay 64 ee Ethiopia laga galay kacdoon baa jiray xilligii militariga waddanka qabsaday kacdoon dad ayuu ku qabsaday oo ku kiciyay kacdoon dad buu la yimid oo waxbuu dadka u sheegay wuxuu doonaa sax iyo khalad waxay doonaan haade wax badan baa ka dhashay wanaag waxa ka dhashay ololo yaal badan wax iska wax u qabsan badan ismayaal badan jacayl badan xilliga dagaalkii 77 sidoo kale dalka waxa lagu difaacay kacdoon xilligii xataa dumintii iyo dagaalkii sokeeyo inkastoo qaab kastaba loo isticmaalay kacdoon shacab baa dumiyay dawladii shacabka Soomaaliyeed ayaa dawladii ka hor yimid oo diiday yacni xilligii hogaamiyad kooxeedadii ayaguna waddanka ragaadsaday kacdoon shacab ayaa laga hor yimid meesha lagaga saaray hadeertana kacdoon shacab ayaa loo baahan yahay laakiin intaa maxaa jiray hogaan baa jiray ama sida khaldan ayagu dadka u adeegsadeen ama sida saxan u adeegsadeen militarigu hogaan buu ahaa dawladihii rayidka ahaa hogaan bay ahaayeen kooxdihii leegada iyo daraawiishtii iyo dadkii halganka dalka soo galay hogaan bay ahaayeen kooxihii iyo jabhadihii dalkan hogaan bay ahaayeen waa sida saxda ah maantana hogaan baa loo baahan yahay kuwii maxkamaduhuna hogaan bay ahaayeen oo iyaguna dadka markaas ka xoreeyay hogaamad kooxeedadii ayaguna hogaan bay ahaayeen marka mar walba waxa meesha aan ka maqnayn hogaan la yimaada wax dadka u cuntama oo dadka kiciya ma taala waaye wax dadka lagu kici karo oo dadka maanta wax ka qaban karaan oo ay dhibaatadan iyo dhimashadan iyo argagixisanimadan iyo hoobashadan dadkeeda iyo caruurtan yaryar ee la gowracayo iyo caruurta la kufsanayo iyo haweenka xuquuqdooda lagu tumanayo caruurtan yaryar ee la soo jarjarayo hilibkooda iyo ficilada xun lagaga dhidhigi karo ma taalaha laakiin waxaan u baahanahay hogaan isku xiran qalbi isku xiran iyo Soomaalinimo isku xiran waxa xaqiiqa in intaas oo kacdoon oo jiray xataa kii maxkamadaha aatay ilaa Hargeysa iyo Bravo wala iskaga xidhnaa reer Hargeysa mar walba waatay u mudaharaadayeen dadka walaaladooda waatay u mudaharaadayeen dadka Soomaalida ah isma nabca waa isku qalbi laakiin hogaankii ayaa mar walba dhuminaya fursadihii waaweyn dadka Soomaaliyeed meel ay ka dhidhiyaan waa joogan laakiin cid ay la dhidhiyaan bay u baahan yihiin waxaan u baahanahay in arrinta wax laga qabto dadka reer Muqdisho waxa loo baahan yahay inay ayagu is abaablaan ayagu inay ciidamo madaniya iyo dhalinyaro madaniya sameystaan qof walba inuu ogaado gurigiisa cid degan waxaan in laga hortago burburkan hantida iyo burburkan dhimashada dadka yacni waxyaalaha la yaab kale warbaahin Soomaaliyeed oo waliba qaarkood xarumooda yihiin magaalada Muqdisho ayaa waxaan ku arkay iyagoo qoraya oo waliba warbaahin waaweyn qaarkood ay ku jiraan iyagoo tabinaya dhimashadu way koobneed ama khasaaruhu ma koobna haddii qof dhinto khasaaruhu ma koobna hal qof oo Soomaaliya oo muslina wuxuu la qiimeeyahay cirka iyo dhulka Ilaahay baa ku masaalay yacni ma koobna fatuur waxaan ugu dhacay yacni waxaan la qabsanay xanuunkii ma la qabsano qofku markuu xanuunka iskala qabsado dhibaatada iskala qabsado ee uu iska qaybo ayay taas noqotaa aynu fadhiga ka kacno dawladda Soomaaliya bifadlikum oramino hasasila ida oramino saraakiil bedel waxaan oona dadka hogaamiya kacdoon hor qaada wax la imaada hakas dadku ma qoraal aad soo dirtaan macna sayamaayo inta faqarayaasha magaalada istaagtaan iyo dhulka ay dhibaatooyin ka jiraan dadka in la hor qaado hogaan loo noqdo ha lagu tala galo qaybta wararka iyo calaha dhinaca diblomaasiyadda